السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي نازلين بيوتي channel ku xiran kusoo dhawaada. maanta halkan waxaan rabaa inaan ila wadaago bariis isku kariso aad u fudud una macaan badan insha Allah. waxaan huwa inaan ka heli doontaan hadaa bariis isku karis ka caajisi jirte hadda waa u xiisaya ku dhahay sameeskiisa kariskiisa insha Allah. hadaa nagu cusub tahay please subscribe noo saar, hadaa nala joogtay video ka heshayna like tan ugu qabo, haddana daawasho wacan. halkan waxaa ku haystaa waa surfideena digsi dabka soo saartay ma digsi saliida ku soo shubtay waa kaasa. haddana saliid inta ka karkaraysan sugaaya waa kaasa. saliid way isoo karkartay. waxaa halkaas ku haystaa waa laba xabo basal soo jarjaray. basasha marka hor shiileynaa horta, kadib markaas waxaa ku soo darsanaynaa hilibkeena kasaa ujeedana u maleynaya basasha xoogo intee markaysan u karta caraf yaa. hadda markii hilibkeena ku soo darsanayna hilibka u jeedan jiir le waaya ama steaks da taqaanidba aan si waaweyn u soo jarjaray. kadib hadii hilibka marka ku soo daro haddana waxaa ku soo daraya spices keena. adi spices badan uma baahanaysid yaa. bariis isku karis oo waxa waa igu soo tuur leh aka saaqaandadaas waxa waa oo xawaaji isku dardar waaye insha Allah inaan tusin doono hal qaande kadib waxaa ku soo daraya qaandadaas oo curry powder. marka intaana marka isku soo daro kadib waxaa ku soo xijinaya wax yar oo filfil shishiidneed waa madowda sajalka kadib waxaa ku soo daraya waa jeex liin dhanaan. kadib intaana isku dhaqaajinaya yaa. liin dhanaanta dhinaga u yeelaysaa caadi ahaan uu macaan oo hilibkaagana macaan ayo ku naqanaya dhanaan haddana waxaa ku soo darsanaynaa waa maraq digaag jumbo yaa waxbad kadib waan dhaqaajinayna wax biyo kuma dareeno waa dabooleynaa. waxaan sugeynaa hilibka intuu kana shiilmaayo insha Allah arki doontiin. waa kaas ay u jeedaan hilibkeena wax biyo kuma darin waa kaas u jeedaan oo maleena wuu shiilmay. hadda marka waxaan sameynaynaa biyo ku soo dareynaa. hilib geel waaye waxaa loo baahan yahay inuu si fiican u bislaado. marka waxaa ku soo daraa 4 koob oo biyo kadib marka hilibkeena soo noqonaynaa. waa kaas ay u jeedaan asxaabteeda qaaliga waa kaas ay markuu hilibkeena soo bislaaday waxaa ku soo darsanaya waa 4 xabo yaanyo waaweyn soo jarjaray waaye. yaanyadan waa kaas u jeedaan tii bisleed ma ahan yaa. tii bisleed ka sii jeclaan lahaa yani nasiibkay laakiin tan igu soo aadin fahmino. kaas waxaa ku soo darsanaya waa yaanyo shiishid oo 2 baac bacda tii yareed waa hada dikalna midda saacada haysto waxaa isticmaal kartaa 3 qaando yaanyo shiishid ku darsan kartaa. adi gaduudka saadi akrabtid leewa ma ogid hada gaduud zaid arabtidna waa ka badsan kartaa laakiin ani gaduud zaid ma rabi insha Allah waa arki doontiin. haddana waa kaas yaanyadeena way noo soo bislaatay yaa. ayada wajajabtay dabka iska gaabinaysa ma fahmino. haddana waa kaas waxa ku soo darsanaynaa waa 2 xabo adi 3 xabo baradho waaweyn soo jarjaray waaye iyo xabad kaarot oo si weyn oo soo jarjaray. kadib hadda marka waa dabooleynaa waxaan sugeynaa baradhada intay ka kariso wax biyo kuma soo daray iir le u baahanaa inay ku bislaato. haddana waa kaas baradhadeen way soo bislaatay diyaar waaye yaa. marka kaas u jeedana u maleynaya wax yar cusbo ku soo daraya ilaa haday xabad maraq digaaga isticmaalay cusbo badan uma baahnin yaa. hadda waa kaas waxaa ku soo darsanaya kabsar iyo toon soo tuntay waa kaas intaana marka si fiican isku dhaqaajinaya kadib moowahay kasha ku soo tuntay wax yar biyo ku soo raacinaya kor ugu soo shubaya. kaas u jeedaan biyo kale marka u baahaneen hadhow intaana bariisku karneena. bariis caadi ahaan waa insha Allah ka heli doontaan. bariiskan waa kaas biyaan ku karinaya marka hore saliid iyo qorfe iyo heel iyo cusbo iyo biyo lagu soo kariyay ma fahmino. isdhiinay digsiga eberka marka aragteen suugada intee ka baxday yaa. suugada baaquli kala ku soo gadin fahmino. waa kana suugada inta ku soo shubtay. hadda marka waa kaas u jeedaan bariiska yaa sida biryaniga oo kale talo karnooya insha Allah. bariiska marka qayb saan ugu soo hormarsiinaya marka qaybtan saan ugu soo shubo yaa aan saan ku yeelo kadib haddana wax yar oo waxaan soo qaadanaynaa suugada meel soo dhiganayna daadi qudaarti kor ugu soo shubeynaa. bariis caadi ahaan uu ku soo baxaya insha Allah. waxaan filayaa inaad ka faa'iideysataan yaa. saa marka ugu soo shubo haddana qaybta kale bariiska kor ugu soo shubaya. bariis ayna caadi ahaan waa ku dhahay bariis isku karis waa isdhahay kan
يا برياني وش شبهها مفهمينه بريسكاga furfur macaan oo soo baxaya hadhow hadana korasaan ugu soo shubneena برياني maxaa ku falay briskaaga isku kariska caadiga ah hadasaan ka dhigi kartid ya marka waa ka saadana qaybta kale taasaan kor ugu soo shubaya fahmino saa marka had kor ugu soo shubo hadana briski hadana ii hareekis aan kor ugu soo shubaya isku dhamaatay marka insha Allah ala socda asxaabta ka saa ujeeda hadaan ku soo dhameysana insha Allah briskeen markuu noo soo bislaado isku soo noqoneena halka saahiba ujeedaan briskeen uu soo bislaaday qaandada qaadanaysa hada marka waa dhaqaajinaysa fahmino si fiican hada marka la isku dhaxgelinaya diyaar way briskeen uu bislaaday ilaa hadaaya bi marka ku soo karinay asaga oo zaid soo karino maaskoote soo miirnay aheed marka wuxuu loo rabay in la huuriyo oo qudaartii wixii lagu huuriyo loo rabay insha Allah hadana waa ka saa ujeedaan briskeen sida macaanka qurux badan oo noogu soo baxay waa soo diyaarsaneynaa waana la arki doontiin insha Allah waa ka saa ujeedaan bisbaaskeen aan soo tumanay jeexliinta gees ka soo saartay ya caadi ma ahna ku dhaqadeena maanta waa insha Allah ya ka faa'iideysta waxaan filayaa fiidiyoga inaad ka heshaan please hadaan ugu cusubtahay subscribe ka naga iloobin hadaan la joogtay in aad fiidiyogan aad fiirsatay aad ka heshaan like ta nagu qabo ya asxaabtaada kale tan la wadaag u sii sheegaray commentigana waxa uu fariin mise wax dhiirigelin aan ugu soo qorayso commentiga hoos insha Allah ku farxi doonaa akasaahe please ayna bacaadi ahayn waan idhahay ku soo dhawaada insha Allah waa inoo next video باي السلام عليكم ورحمة الله